magacii waa injineer Yaasiin Sheekh Maxamuud Fiidshe waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho kuna barbaaray kuna wax bartay dugsiga sare Axmed Gurey ayaan ka baxay sidoo kale laba baaj ayaan haystaa oo computer science ama magaalada Boorame jaamacadda Eelo uga soo baxay iyo sidoo kale jaamacadda African University of Public Administration aan uga baxay qaybta siyaasadda waxaan ahay abwaan waxaan ahay siyaasi waxaan ahay qoraa waxaan ahay injineer waxay ugu dhalatay sanadii 2006 xilligaas oo baahi fara badan aan dareemayno deegaanka aan deganahay iyo gubta in dawladdu dhiska qayb badan ay ka maqan tahay oo deegaanka uusan lahayn adeegyada dawladeed nidaamka dawladeed degmada iyo hoostageysana oo ahaada dhul aad uga fog markaas ayaan garowsaday inaan dawladdu dhiska qayb ka noqdo oo deegaankii aan ka bilaabo shaqadaasi waxay muhiim igu noqotana in deegaanka dhismihiisa marka la yiraahdo oo kabco dawladda ayaa fidaysa horumar ayaa imaanaya bulshadu waxay noqonayaan bulsho dheelitiran wax badan u qabsoomeen waxyaabaha sababta igu kan waxay ahayd marka dadka waalidka ay ka shaqeeyaan dawlad dhiska adna waxay noqonaysaa marka inaad ku dayatid dawlad dhiska ka shaqeeya aabay ayaa wuxuu ahaa nin dawlad dhiska ka shaqeeya horumarinta degmada Wardhiigley iyo in degmo naqata ka soo shaqeeyay wadadiisa ayana raacay wallahi xilligaasi dadku dhamaantood waxay lahaayeen waxaan wax hirgala ma ahan suurgal ma ahan dadku inta badan waxay u yaqaanaan waxyaabaha iyagu isleeyihiin ma suurgalaayo qofkii qabta ama shaqas ku dhex jiro qof waalan haddii iyagu hoolay qabanayaan ee arkaan hawshan iyo hawshan la qabana farqi u dhaxeeyo xilin qofka soo waalan yahay wuxuu qabanaa marka waalan yahay baa lagu dhahaa sidaas oo kale bulshadu way ka kala cararaysaa waxay leedahay waxaana wax suurgal ma labada qof isku keento marka fikrad dhaadhicisid maalmo kadib waxa laga yaabaa iyagoo ka jifteen marka muddo 16 sano sanadkii 17 ayaa lagu jira markaan soo bilaabay qof waliba waxa maalin baa heer ay iimaanaysay dadku waxaana suurgaleynay lamid ahayd waxaan dhici karina ahayd horumarkan la sheegaa wax riyaa la ahayd oo dhalanteed ah balse haatan sidii hore ma ah aad degmo marka laga hadlayo waxa lagu baahan yahay inay leedahay iskuulo ee leedahay sidoo population fara badan ee leedahay wadooyin ee leedahay goobo caafimaad iyo saldhig boolis iyo xarun degmo marka iskuulo ilaa waxa ka furan wuxuu ahaa 40 iskuul ku dhawaad bulshada waxa ku nool 420 dad loo qiyaasay population-keedu uu aad u badan yahay deegaanka baaxadiisa 32 kilometer square waay marka hadii intaas oo adeegyo ay soo buuxisay iskuulada ay leedahay goobo ganacsi inta kale population-ka ay wada dhan yihiin xuduudihii iyo meesha kale dhul degmooyinka ay la dhirsan tahay gubto kale hadda Wardhiigley ay la dhirsan tahay jidka Jamal Daawud ilaa iyo waxa waa jidkan loo yaqaan wadada aadan cadde marka hadii dhulkina intaas ay tahay saldhigii booliska iyo degmada naga dhinaa iyadana waxa ahaa maamulka gobolka arimahaas oo aan kala fadhiisanay xildhibaanadu wayna naga aqbaleen saldhigina dhawaan ayaa hawsheeda la gali doonaa isbuucyada soo socda insha Allah waxaan nooga qabsoomay hawshan aniga iyo tiimka dhalinyarada ila shaqeynayay in bulshadu marka hore aan ka gadno ee noo suuro gashay xildhibaanadu iyo siyaasiyiintu nala fahmeen iyagu in horboodayaan maanta shalay gadaashana joogeen laakiin maanta iyagana horbooda maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha iyo ku-xigeenada iyo raggii deegaanka matalaya gobolka joogo iyo siyaasiyiinta dhamaan hawsha isla fahnay waxaan rajaynaynaa insha Allah bisha May iyo bisha June oo dambeyn in adeegii la dhameystiro xarunta degmada la dhagax dhigo dadka ganacsatada taa oo ku dhiiranayaan hadda waxay leeyihiin anaga dhulka bixinayno dadka qaar waxay leeyihiin dhismaha bixinayna marka hawlihii way soo dhamaadeen waxaan rajaynayaa bilaha soo socdo in dawlad dhiska iyo wanaagii deegaanka oo lagu tilaabsado wallahi way aragno ka korsay xataa markii ugu horeysay hawsha noocan aan galay ahayd dadku markay wax ku cusub tahay hadii lagu siina ma dib far badan kala kulmaysaa dhibaatooyinkaas oo ah aflagaado in loo yiraahdo markay qoraal yar hata soo sameysay article yar hata Facebook soo dhigta ama meelaha ka baraha bulshada soo dhigto leeyahay kiya hadlooyo kiya qoraalkan soo qorayo marka hore wax badan laga sheegay laakiin kadib hawsha soo qabata waxa la yaabaa marka qaar in dadka kula sheegtaan oo sida haatan dhacdo marka dhibaatooyin far badan laga kulmaa dib far badan kala soo kulmay aflagaado ha noqoto wax ma qaban karo ha noqdo isoo reer hebel ama wax qabana hata in la yiraahdo marka qaar oo dadku qabiil u fiirshaan horumarka marka la qabana waxyaaba kala qabiil loo fiirsho waa wax iska dhici karo 4.5 waxa lagu qaybsado nooca laakiin shaqada la soo qabto in la yiraahdo qabiil ha lagu soo qabto reer hebel disa qaban wax ma naqanayaan dhibaatooyinka aan kala kulmay kamid ahayd aad dhalinyaradu maadaama inta Soomaalida marka la yiraahdo 135 waa dhalinyaro dhalinyaraduna waa laf dhabar waa tiir aan go'in
waa dadka keliya oo maskaxda leh oo dadkii hore bedeli kara odayaashii hore qabiil ay kusoo dhinteen arrimo kale qaar horumar la'aan qaar waxbarashada yaraad ayay ahayd maadaama dadku hadda wax fahmeen horumar ban lagu tilaabsanayo waxaan is leeyahay saaxadda siyaasadda baryaama dhalinyarada bedeshay oo laga yaabay in xildhibaanadu iyo wasiiradu iyo wixii dhammaay ay noqdeen dad dhalinyaro waxaan rajeynayaa in madaxweynaha soo socda hataa nin dhalinyaro uu noqdo oo bulshada dowlad wanaageeda ee dhalinyarada ayaa dhisi karta ka qayb qaataan xilligeeda la joogaan dhigi karaa dhalinyaradu laakiin waxaan leeyahay hadiyadni la siinayo guryaha nagula imaanayo kaala qabtan ilaah ma jirtee ka qayb qaata tusaale waxaa kuu filan waddankeena burbura Soomaaliya marka la fiirsho adduunka nagalama jecla anaga balse waxay ku dhacday marka qofka meel ku dhaco lagama soo qaado lagu sii istaagaa laakiin isaga haduu wax yar marka dhac isla marka hore ka istaagi karo waxa leeyahay waa boodada waxa ahay dhib malaana hor u sii soco garba la siinaa marka wixii dhibaatooyinkan ugu dhacayaan waxay tahay anaga isku keenay hadda anaga waxa ahay wanaaga sameeyno hadda horumarada dalka ka jiro bariyaan dawladdu soo dhismaysa wadanku wanaagsanaayo inta yara naqatay dadka kugu mahad celinaa ama dawladnimada dhaha dawladdu wax fiican ay qabatay tirada ka bateen marka hadda anaga wax qabsano ay wax qabsamayaan dii kalena siyaasadda nafteeda ma ahan waxa ahay kaale imaad ee kaale wax goosal wada maana waa lagu riixaya oo lagu dhinaca walba lagu riixa mid kamid ah siyaasiyiintii geeriyootay Allah naxariistay Maxamed Khayra Afrax hadda kor wuxuu yiri siyaasadda dhalinyaradu door inta la eego kulli maxad u furuusan leeyahay wuxuu albaabkan ka sii celinayna iyagu karti ee albaabka nagal u soo jabshaan ee la wareegaan haday helaan way toosaydaa laakiin dib banaka ay joogaan anaga juhdiana galo yiri anayna qof dhalinyaro kale ma ogolin marka waxaan leeyahay anaga loo baahan yahay inaan waxa ahay jaaniskas ah la areysan dhalinyarada farinta u dira waxay tahay dawladdu dhiska inay horto qayb weyn ka qaataan deegaanadu ay dhisaan horumarka ay ka shaqeeyaan qabiilka waxa ahay waa in taarifu waay qabyaaladu ayaa xun qabiilka in la isku aqoonsado maxmal ka qabyaaladu in iska daayaan qofku wax qabanana ay uga mahad celiyaan dhaan wax baa qabatay aniga hadana qabano waxaas dhicma inay sadeen inay iyagu dib dhiska ka shaqeeyaan inay waxbarashadu waxa ahay ay ku dadaalaan horumarkaas kala duwan ee sameeyaan markaas waxa imaanaysa in iyagu qofkii waxa la yiri mootay dadku mahad celin ilaahay uma mahad celiyo marka qofka ilaahay ku shukrin waxa ahay dhibaatadaas ay leedahay oo qof kale isaga u mahad celimaayo ma la shukro naas la yiri marka waxaan isleeyahay dhalinyaradu in si weyn ay u sameeyaan isku xidhnaan gacmaha qabsadaan dawlad wanaaga ka shaqeeyaan horumarada dalka ka jira ka shaqeeyaan tuulooyinka iyo deegaanada hadda gacanta dawladda soo galayna kala shaqeeyaan waxbarashada geeyaan goobaha caafimaadka geeyaan waxba la shaqeeyaan aniga ugu horeyn waxaan diyaar u ahay inaan dhalinyarada iyo inta la shaqeynayso aan deegaanadeena qayb weyn ka qaadano aan horumarka gaarsiino iyaguna in nagala shaqeynaa rajeynaa insha Allah